بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسلسلة دي مانديق كوربا كحرا سومالي ودنبا اسكالي أنيقو أحمد نور محمد عبد الله أنا وأنا نيدا دهينية waxa aan toos ula hadlayaa dadka garaadada ah iyo waxgaradka rag iyo dumar ee reer khaatumo iyo dhammaan dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha hubqaadka noqday ilaahii weynaa oo waaxidka ahaa xaq baad ku socotaan ilaahay iidankii waanad guulaysanaysaan balse mar walbaba maadaama waxaanu adduun yahay aakhirana la aadayo soomaalidu waxay tidhaahdaa caano daatay dabadoodaa la qabtaa dadka qaar baa iska jaha wareersan dad baa maabkii laga dhumiyey bal dadaala caqliinu kuma yara oo waxba idiima sheegaye ilaahay ka sokowna anigu raalli anigoo reer khaatuma ka tirsan SSCna ah dabeecadaha aad ku socotaan oo dhan aad iyo aad baan u raacsanaa bal dadaalaan marka idin leeyahay walaalayaal horta dagaalku wuxuu u kala baxaa markaan si guud u hadlo ummadda soomaaliyeed oo dhanna aan u baahiyo dagaal muslimiin ka dhaxeeya iyo dagaal muslin iyo gaalo ka dhaxeeya muslinka dagaalka xaggiisa ka jira waxaa la dhowraa shacbiga ninka markaa hoggaamiyaha ah mar hadduu muslin yahay waa inuu dhowraa nolosha shacbiga iyo xasilloonidiisa hadduu hoggaamiye yahay goobta dagaalka gaal uu hoggaanka hayaana shacabka ayuu xargaha u gooyaa shacabka ayuu tirtiraa shacabka ayuu baabi'iyaa dagaal kastana waqti iyo goob buu leeyahay waqtiyada ilaahayna waa ay kala fadilan yihiin 4 bilood oo aan colaad iyo dhibaato laga reebay 8 kale ayaa ilaahay waqtiga soo geliyey 4 bilood oo xasillooni ilaahay uu faray dadka uu khalqaday ee bini aadanka ah waqti kastaana wuxuu ku dhacaa cidlo kuma dhacee goob buu ku dhacaa meel buu ku dhacaa markaasuu haddana tooshka wuxuu ku ifiyaa dadka halkaa ku nool waxa ay yihiin ma muslimiinba ma gaala dagaalku marka waxa uu si kala baxaa mid xaq aad ku dagaalamayso iyo mid aad xaqdarro aad ku dagaalamayso mar haddii qur-aankiina lagu sheegay axaadiistii nebigana lagu sheegay
أول يري قفك النفتيسة مالكيسة عردقيسة قرقيسة وحو البابا هاللو إلاليو هاللو قديرادو هاللو دورو نينكا دهايا مركا naftiisaa goynayaa gurigiisaa ka saarayaa anigaa xukumaya anigaa ku amar ku taaglaynaya anaa sharaftiisa wax u dhimaya anaa dumarkiisa iyo carruurtiisa asagu isma maamuli karee anaa maamulaya anaa canshuurta iyo hantida iyo waxa ay leeyihiin dad iyo dunyaba anaa maamulaya ninka saas yidhaahda oo xaqdarro u soo tafaxaytay dadka halkaa jooga oo waxgaradkaahi ayagoo ilaalinaya marka cirdigooda iyo sharaftooda iyo jiritaankooda way iska celinayaan ilaahayna hortiisna janno ayaa uga diyaara waayo ilaahay baaba ku amray inay iska celiyaan marka reer SSC rag iyo dumar wixii halkaa ku geeriyooda gaalo iyo muslimna waxay isla ogsoon yihiin oo isaga markhaati kaceen waa geeri in la dhimanayo qof walba waa ogyahay gala jannada marka gala jannada kulligii gala jannada waa fursadda ugu wanaagsan oo ugu fiican gala jannada mideeda kale waxaad ku socotaan midaynta ummadda Soomaaliyeed calanka ummadda ka dhaxeeyaad wadataan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaad jeceshihiin jiritaanka qaranka ummadda Soomaaliyeed iyo midnimaad jeceshihiin wax allaale waxaan idinku waxaad jeceshihiin aan ahayn waa jinno ku xaqsay waa ibliis ku tali waa balaayo meel kastaba ha ka yimaadeen waxaas aad ku socotaan iyo dariiqaad waagi horena 21 sano sayid maxamed cabdilla xasan aad u dirirayseen haddeerna aad u hub qaadeen كمل دالية وقتي سيد محمد عبد الله حسن باتاجنتين حدر لبدا وقتي وحبيس بالدوريان حرية دالك الصوماليات حر معها حر دالك الصوماليات وحاوية سيدا وحواركا وعن runtii aan sheegayaa nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee marka uu ka tegayay adduunyadatan laba waxyaabood buu uga tegey wax kale oo ha la raaco wax kale oo ha lala socdo wax kale oo ha la gashado qalbiga uu yidhi ma jirto waa kutubka qur-aanka ah iyo axaadiista nebiga inta kale oo dhan gadaal bay ka yimaadeen inta kale oo dhan gadaal bay ka yimaadeen oo waxay u yimaadeen wax kale ma ahane xeelado siyaasooyin siro iyo khayaanooyin isku ningaxan ee bini aadanka shaydaanku u walacsiiyey shaydaanku waxbuu walacsiiyaa asagaa u walacsiiyey muxuu walacsiiyey hadday takfiir yihiin haddii ay yihiin al-itixaad haddii ay yihiin akhwaanu muslimiin haddii ay yihiin dabmuljadiid haddii uu yahay xisbul islaam waxaasoo dhan iyo kuwo kale waxa weeye khayaanooyin siyaasadii ku xiran tahay ayay ku dhisan yihiin
kutubka quraanka iyo sunnaduna nebigu ka tegey ayaga qofkii raaca kutubka iyo sunnada qofkii raaca weeye kuwa jannada gelaya ayaa nebi maxamed calayhi assalaatu wasalaam uu yidhi mana dhumayaan weligood raaca marka soomaaliyey kutubka quraanka ah iyo sunnada raaca waxa kale oo dhan faraha ka qaada sida nebigeenu sheegay عليه الصلاة والسلام وابا واحد عضي سيديتماتكي أولا نسي هيئة اللي يرادو هدا مقعد اللي يرادو دهب شيل قلال باللوغة بحيه markii hore waxaa loo bixiyey dhiigshiil dhiiggay shiishaa halkaa marka maxaa ku qarsoon dhiiggay dhuuqdaa dhiiggay leeftaa dhiiggay murdisaa dhiiggay miirataa waxaasaa ku qarsoonaa markii dambaa gadaal laga gartay waa la bedelay dahab baa loo bal meeshii dhiigga dahab baa la soo geliyey dahabkay shiishaa barkee bini aadanka waxay jecel yihiin meesha dahabka lagu shiilo meesha dahabka lagu shiilo bini aadanku waa jecel yihiin laakiin meesha dhiigga lagu shiilo bini aadanku ma jecla haddaan balaayo u geyn wakaa halkaa maxaan ka wadaa waa khayaanooyinka hadda aan soo sheegay ee dadku wax ku khayaaneeyaan ee adduunyada inta la joogo wax lagu labo weeye takfiir iyo aqwaanu muslimiin iyo magacyadaa la al-itixaad iyo magacyadaa la baxsanayo oo kooxaysiga ah khayaana ku wada jirta la socda marka waa inay baraarujinayaa adduunku marka muxuu ku socdaa adduunku waxa uu ku socdaa waxa la yidhaahdo horta باورka ugu weyn waa midka ilaahay kun fayakun ahaw waan ahaanayaa waxa kale oo baawarka la siiyey wax kastaba ha ahaadeen dad iyo dunyaba baawarka la siiyey sida uu raba ayaa ilaahay ugu talagalaa inuu u meel mariyo hase yeeshee bini aadanku markay isticmaalayaan inay wax halligaan inay wax baabi'iyaan inay wax leexiyaan inay dal eber ka dhigaan laba arrimood ayay ugu soo dugaalaan markaasay ku xiraan shakhsiyaadkii wadi lahaa waa kee marka kow waa lacagtu markayay soo jiidi taqaanaa aad iyo aad waxaa u jecel qofka dhuuni raaca ah qofkaasaa aad u jecel lacagta waa lagu soo dabaa waa imaanayaa ilaa lacagtii buu jecel yahay mid kalena hub baa gacanta loo geliyaa oo waa nin jecel xukunka inuu ku qabsado hub aad iyo aadna wuxuu jecel yahay halaaga in wax la halaagayo ayuu jecel yahay indhihiisa bashaq hubka inuu ku siiyo jecel yahay asagana mar hadduu hubka haysato adduun waa haysataa buu is yidhaahdaa marka waxa weeye dadka wax soo dabto oo dhan waad aragteen bir bay wax ku raadiyaan kulay kalluun ku tahayna oo bir lagu soo dabo lagu soo bixiyo bir unbay wax ku qabtaan marka baawarka wax lagu ugaarsadaa waa kuwaas aan soo sheegay haddaba marka shakhsiyaadka loo adeegsanayo marka hubka iyo lacagta kow
soomaaliya oo dhan waa aniga yidhi aniga soomaaliya iima kala saara NFD waa soomaali soomaali galbeed waa soomaali jabuuti waa soomaali waqooyi waa soomaali koonfur waa soomaali aniga wax ii kala soocan ma laha shiikh iyo shariif iyo nin kasta oo cilmi iyo caqli iyo darajo iyo hab meel kastaba ka soo gaaray hadduu culimo yahay hadduu 100 PhD soo qaatay hadduu meel kasta ka soo qaatay kulli waxa xaqa ah xaqa sida uu yahay in la dul istaago ummadda wanaagsan maatada shacabka dadka aan wax u soo baranay waayo meeshaani cayaar ma aha hanti oo dhan ilaahay baa iska leh habarta laga soo qaaday $1 ama $2 laga soo qaaday canshuurtaas dadkii wax ku soo bartay rag iyo dumarba dadkii wax ku soo bartay ilaahay horti xisaab baa horta allah waxba alla qararaflaynina ninna yuusan la rooroorin waxa weeye hantida ilaahay baa leh dadkana ilaahay baa leh asagaa irsaaqa asagaa furay asagaa waxbaray asagaa indhaha u yeelay asagaa dhegaha u yeelay asagaa maskaxda u yeelay asagaa qalbiga u yeelay bal ka warran marka hadduu ka qaado hadduu ka malaaso ka warran kulli uu ka malaaso yaa u beddelaya yaa imaanaya yaa u fiiqaya yaa waxaynaya maa qadara allaahu mafcuulun ilaahay wuxuu qadaro ayaa suubsan wax kale maya ninkii horseedka uu ahaa kow oo dhibaatada ummadda soomaaliyeed ilaa haddeerna ku wada waa ismaaciil cumar geelle isla markaasna walaalahay ciise dadka kale ee soomaaliyeed ee ilaahay xukunka ugu dhiibay ayuu dhibaato weyn u ku hayaa silsiladaha daadsan adduunyada ee khayaanada ummadda soomaaliyeed lagu baabi'inayana waa ninka xididadooda oo dhan loo soo dhiibo ee ku beeraya dhulkeenna ee dhexgelinaya dadkeenna ee khayaanaya dadkeenna ee helay ama amiilyaal uu ku shaqaysto ayaan dhaweyto hadalaana ka filaynin boqor buur madow oo aan jeclahay dhaqdhaqaaq badan oo uu sameeyey ayaan dhaweyto hadal khalad ah oo uu galay ee afka uu ka sheegay oo ismaaciil waa nin fiican uu yidhi waxbay kuu dhimaysaa hadalkaas waxbuu kuu dhimayaa waa bil ramadaan waa soomanahay hadalkaas waxbuu kuu dhimayaa waayo caqli baad leedahay garashaad leedahay dareen baad leedahay ilaahay baa feker ku siiyey waad garan kartaa waxa uu yahay maxaad u yeeshaa ani waa ogahay ilaahay baa ii sheegay waxaan ilaahay wuxuuse ii sheegin anigu ma aqaan ilaahay baa ii sheegay qaab siyaasadaysan baad u hashay socodkaa iyo meelahaas aad turkiga aad tegaysa iyo jabuuti aad tegaysa iyo itaaliya aad tegayso iyo dalalka aad tegaysa iyo war dhulkoo dhanna ilaahay baa iska leh dadkoo dhanna ilaahay baa iska leh gaalo iyo muslin laakiin xaq ku hadal meel kastood joogtaba waa inaad xaqa ku hadashaa wuxuu sida ay yihiin ismaaciilna anna ma abuurin adigana ma abuurina ilaahay baa abuurtay inaan toosinno inaan wax u sheegno war waad dhusan tahay war walaalow ka joog inaan nidhaahdana xaq buu noogu leeyahay adiga marka haddaad ammaanto oo aad tirahda ma xumee waasaan dee waddadii mugdiga ahayd baad u fasaxday waa gabdhihii aan ka celinaynay inay sacbiyaan inay garaacaan inay heesaan inay buraanburaan inay wax walbaba sameeyaan inay mashxaradaan
markuu qof uu qudbaynayo diinta islaamku ma ogola diinta islaamku waxay ogoshahay wax islaamka khayr u ah in laga mashxarado in loo cayaaro in loo boodboodo in loo xafladeeyo waxaasay diintu ogosha laakiin nin tuuga nin wax dhacaya nin ummadda eber ka dhigay nin meel walbaba haye farax qosol asagii baa xoogaa lacaga soo bixinaya dad buu leeyahay askar hoosuu leeyahay askartu wuxuu leeyahay heblaaye iyo heblaaye iyo heblaaye iyo heblaaye iyo heblaaye iyo heblaaye ha la soo wado ayaga lacagta loo soo dhiibo xagga ha la isugu yimaado macal carruurtoodii macal dadkoodii ha la isla yuuso maantoo dhan sacab baa dhacaya marka hees baa dhacaysa marka buraabur baa dhacaya markaasuu asagii wuxuu isleeyahay ya wallaahi bilaahi ninka ugu sarreeyaa tahay ninka ugu sarreeya haye yaa abuuray marka ilaa waa waraabin waa beeraa waraabinayso beertii xaaraanta ahayd baad waraabisay marka oo lagu dhimanayay ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ku dhimanaysay wixii ilaahay raalli ka yahay u sacabtuma inta kale maaha fariista wax dhegaysta waxba sacab ha garaacinina ninka waxa waaye adduunku maanta waxa weeye waa itus iyo itaabsii u naxariista ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaas harraacinina qabiilka iyo qurunka iyo dulliga iyo garashada maxaan qabiiladoo dhan aan u idhi aniga qabiil waxba igama jire qofka xun ayaan tilmaamayaa ninkaan xumayn waaba ammaanayaaba oo waa aragteen waayo albakiilu caduwullah qofku marka uu fiican yahay waa inaan idhaahdaa hebel waad fiican tahay hebel waad fiican tahay hebel waad fiican tahay heblaaya waad fiican tahay heblaaya waad fiican tahay heblaaya waad fiican tahay waayo ilaahay maxaa uu yidhi ummaddayda ninkaan ku xamdiyin anna iguma xamdiyaayo waayo qofka ku dhaqaaleeyo qofka ku wanaajiyo qofka qiimaha kuu yeelo qofka dadaalaya yaa abuuray ilaahay baa abuuray waa inaad qofka tiraahdaa ilaahay ajar ha kaa siiyo waxa aad samaynayso qof fiican baa tahay soco ilaahay bayna ammaan u tahay waayo asagaa abuurtay waxa waaye oo hadalkayga aan ku soo gabagabeeyey dalkeenna yaan la boobin meel dheer baan wax ka xirxiri doonaa meel dheer ayaan wax ka xirxiri doonaa dalka laguma cayaari karo haddii ilaahay yidhaahdo rag iyo dumar wax u bartay meel kasta jooga ayaa jooga dadkii dowladnimada soo marayna nooc walbaba soo maray ee dowladdan gacanta soo geliyey ee la socday war bal inta dhallinyarada hadda wax soo baranaysa ee soo kacaysa ay ka soo tabaraysanayaan celiya dalku halis buu ku jiraa dalku waa xaraashan yahay xaraash buu ku jiraa ogaada hadalkaa dalku xaraash buu ku jiraaye celiya kulligiin dushay idinka saaran tahay culays baa dusha idinka saaran kulligiin ha sahlanina soomaaliya yaysan noqonin balaaya kuu talisay in allaale intaan horena waanu sheegay in allaale xasan sheekh maxamuud wadi maqlaysaa sharci alla sharcigii adugu aad adduunyada aad u lahayd ee mid walbaba aad waxaysay eed qalinka ku duugtay ee baarlamaan ansixiyeyna uusan jirin baarlamaan laysku raacayna uusan jirin nidaamna adiga keligaa aad ahayd ilaahay baa nalehe adiga nama lihid shacabka soomaaliyeed adigu ma lihid ehelkaagii adiga aad ka dhalataad hoojinaysaa
dadkii aad ka dhashtay ayaad hoojinaysaa magaxumo iyo balaayo iyo baas baad u wadaa ogow haddana waa ogahay caano badan baadan lahayn lagaama dhiijinayo caano badan ayaadan lahayn lagaama dhiijinayo waayo adigoo mar soo maray xukun adoo soo maray oo wax ku qaadan waayey arrintii waxayba noqotaba ka daro dibidhal waka haddaabad sheekooyin waaweyn aad la timid ma nagu soconayaan maya ma yeelaynaa maya baarlamaankana rag iyo dumar kuwa joogow ma dhimanaysaan warqadaad haysataan ilaahay baa warqada ka haysataan waad noolaanaysaan iska jooga lacagta aruursada haahey yeela ma dhimanaysaan dalkana gogoshiisii lagu fadhiyey waa idinka halkaa waxaad u timaadeen waxa weeye waa lacagtaan hadda ka sheekaynayey waa adduunka waxa wax lagu baabi'iyo waa lacag ehlu dhuuni baa leeyahay dadka dhuuniga ka shaqeeya ingiriiska wuxuu ku mahmahaa money is nothing but the man is everything lacagtu waxba ma aha laakiin qofkaa wax ah macnaha qofku waa inuu qofnimo leeyahay waa inaadan iibsami karaynin waa inaad culus tahay waa inaad sharaf iyo karaamo inaad ku noolaato aad jeceshahay soomaaliduna maxay tiraahdaa iimaan allah ayaa uur buuxsha ilaahu iimaankaa naga qaadin ilaahu iimaankaa naga qaadin ilaahu iimaankaa naga qaadin ilaahu ummadda soomaaliyeedna khayrka wada tusi wanaagga wada tusi maandeeq koor baa ku xiran dhammaan shacabka soomaaliyeed reer rfd soomaali galbeed jabuuti waqooyi koonfur gudo iyo dibad meel kastaba ha joogeene ayay u hadashaa ummaddaa soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan u ilaaliya magacooda u ilaaliya haybadooda u ilaaliya jiritaankooda u ilaaliya dadkooda iyo dalkooda isu keena oo walaalnimadooda ha laga wada shaqeeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.